waa ugu mahad celinayaa madaxweynaha arrintaas waana ku bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu garsoorka intuu joogay wax badan oo isbedela uu ka sameeyey wax badan oo u qorsheysan inuu ka qabtana weli ay waddada ugu jiraan lagana yaabo inay duruufo jiraan mar kasta mahad celintaas kadib waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda racfaanka oo runtii intii aniga aan garsoorka ku dhex jiray sida uu sheegay guddoomiye Baare wax muuqda oo la taaban karo garsoorka ka qabtay waxa uu qabtay waxa weeye waa wax la taaban karo maalinkuu yimid meeshii loogu yimid garsoorka maxkamadda racfaanka iyo maanta meeshuu joogo way kala duwan tahay qof kasta oo ka mida bahda garsoorka amaba garsoorka ka agdhow wuu fahmi karaa isbeddelka weyn ee ku dhacay garsoorka intuu joogay waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyaddaas uu saaray daacadnimadaas uu la yimid kartidaas uu ilaahay subxaana watacaala ku sifeeyey iyo wax ka qabashada baahiyaha mar walba joogtada ee garsoorka uu leeyahay iyo toosinta iyo ku socoshada qaadashadana dhammaan talooyinka uu bixinayo madaxda sare ee garsoorka si wax looga qabto baahiyaha markasta taagan arrintaas waa ugu bogaadinayaa waana ugu mahad celinayaa mar kastana waa ku celcelinaynaa maxaa yeelay uu mudan yahay in saa loo ammaano ammaantaas kadib mudane Abshir guddoomiyihii hore ee racfaanka waxa weeye xubin ka mida garsoorka talooyinkiisana iyo hoga tusaaleyntiisana mar kasta garsoorka uu u baahan yahay waxaana filayaa guddoomiye Baare inuu yahay qof aad u nasiib badan maxaa yeelay wuxuu haystaa laba guddoomiye oo hore oo maxkamadda racfaanka duruufo kala duwan oo maanta meeshu garsoorka maree ka adag ku soo shaqeeyey welina u heelan in ay siiyaan talada uu u baahan yahay waxa uu u baahan inay la qabtaan meeshu wax uga dirsado la sameeyaan toosinta uga baahan yahay oo dhan uu ka helo asaguna uu aan filayo inuu qorshaha koowaad ugu jirto meeshii uu ugu yimid garsoorka maxkamadda racfaanka iyo gobolka Banaadir in uu isbeddel weyn oo muuqda asna uu ka tegi doono maalinka uu xilka wareejin doonana oo sidaan oo kaleeto marag madoonto ay noqoto tallaabooyinka iyo basamaadka uu ka tegay guddoomiye Baare waxaana ilaahay ka rajaynayaa oo aad ilaahay uga rajaynayaa in uu ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyaddaas uu qaaday la garab galo kuna guuleeyo ummadda Soomaaliyeed oo cadaaladda ka sugaysa maadaama hadda garsoorka madaxdiisa ay wadan yihiin dhalinyaro aaminsanna in uu garsoorku uu yahay halbowlaha iyo lafdhabarka nolosha bini aadamka haddii aysan cadaalad jirin amni ma jirayo kala dambeyn ma jirayso dadnimo ma jirayso waxa bini aadamka uu ku horumarayna waxa weeye in cadaaladdu toosto oo qof kasta uu ku xisaabtamo waxa uu hayo inay yihiin wax mas-uuliyad ilaahay subxaana watacaala uu kula xisaabtamayo waxaan ugu dambeyn u mahad celinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo runtii intii uu shaqaynayey wax badan oo wanaagsan garsoorka ka qabtay tallaabooyin la taaban karo wax ku oolana sameeyey welina ku dhex jira toosintii iyo tayeenta garsoorka waxa ugu badan oo loo baahan yahay in aan ugu bogaadinana waa tallaabooyinka soo far uu qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare si loo hagaajiyo garsoorka waxaana daliilka ugu weyn aan markaas aniga usoo qaataa garsoorayaashii 40 ahaa oo imtixaanka laga qaaday oo la tartansiiyey loona diyaariyey waxaan u malaynayaa burburka intii lagu jiro waa markii ugu horreysay oo cadad intaa la eg oo garsoorayaal ay tartankaas galaan
si hufan oo wanaagsan oo toosan oo Soomaalinimo oo wadaninimo ah qof kasta oo kamid ah dadkaasna uu marqaati uu ka yahay loo qabtay hankuna wuxuu ahaa haddana yahay in garsoorayaashaas ay la shaqo geliyo oo ay shaqeeyaan si isbedelka la taaban karo iyo tayada garsoorka laga raadinayo in uu markasta noqoto mid hirgasha waxaana liid gareynayay arintaas aniguna aan gudoomiyaha ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare markii aan maxkamadda sare aan ka tirsanaa waxaan rajaynayaa in tallaabadaas ay noqoto tallaabo hirgasha oo garsoorka uu isku bedelo iyadoo ay soo galayaan dad kartidooda iyo hufnaantooda iyo wanaagii wax lagu tuhmay aqoontooda ku soo gala oo aan ku imaanin sifooyin kaleeto oo shaqada lagu doonto oo Soomaaliya aad ugu badan waxaan kula dardaarmayaa dhammaan howlwadeennada iyo shaqaalaha garsoorka in lagu dadaalo in ummadda Soomaaliyeed loo cadaalad sameeyo wanaagna loogu adeego lagana fogaado wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed u arkayso in uu baabi'inayo kalsoonida uu garsoorka uu ku qabo waxaad dareemi kartaa qof kasta oo hadla garsoorka wuxuu leeyahay laguma kalsoonaan karo waxa keenayana waxa weeye kalsoonidaas wax dhaawacay waxa weeye shakhsiyaad aan sidii loogu talagalay shaqadii loogu talagalay aan u qabaneyn marka waxaan kula dardaarmayaa in qof kasta meesha uu mas'uuliyadda uu ka hayo ama noqo kaaliye ama garsoore noqo ama darawal noqo ama mid kaleeto oo garsoorka ka tirsan adeegto noqo meeshii aad kaga aadan tahay garsoorka in si hufnaan ah oo daacadnimo aad ugu adeegtaan waxaan ilaahay ka baryayaa gudoomiye Baari inuu ku guuleeyo hawsha uu mas'uuliyadda uu qaaday annagana wixii tala ah iyo tusaaleyn ah iyo hagid oo uu nooga baahdana waa siinayna